بسم الله الرحمن الرحيم ما سند قدوميه waxaan salaamayaa dhammaan golaha shacabka waxaan rabaa marka koobaad inaan u tacsiyeeyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed dhammaan dadkii Soomaaliyeed ay ku laayeen al-shabaab dhulkan Soomaaliya oo aanan si gaar ah aanan ugu tacsiinaynin gobol gaar ah ama deegaan gaar ah waxaad la socotaan al-shabaab waa cadow Soomaaliyeed waxaan rabaa walaalayaal inaan si dhammaan guud aan u wajahno cadowgan uusan noqonin mid hal degmo kaliya ama hal deegaan kaliya oo looga maaragtay culays laga saarayo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Hiiraan taliyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dagaalkan lagula jiro qawaariijta qayb weyn ka ciyaaray waxaan rabaa sidoo kaleeto inaan idin xasuusiyo deegaankan ka imiday waxyaabaha koosgareeyay in hadda aad ay dadka qoryahooda u qaataan ay garab istaagaan ciidamada waxa keenay oo aasaas u ahay cadowga markuu laayay caruur yar yar markuu gubay nolosha ku gubay muwaadiniin ku noolaa gobolkooda markay dumarkii laayeen markii ceelashii biyaha xoolaha laga siisanayay ama laga cabayay ay duugeen ama ay dumiyeen walaalayaal dadkan Soomaaliya ku soo duulay waxay dalkan ku soo kordhiyeen qarax boob kufsi iyo ummadii inay bahdilaan inay ilaahaneystaan ee wax la dhaho humiliation ee dadkan ku sameeyeen waxaan aad ugu faraxsanahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka ee loo yaqaan macawiisleyda in ay waajibkooda ay guteen ay dib u xoreeyeen deegaanadaas anigu aan sigeeda gaarka u matalo ee habeenii maalin u soo jeedaan inay dadkaas ay difaacaan waxaa nasiib darro ah in uu cadowgii hadda uu bilaabay inuu dadkii xoolo dhaqatada ahayd oo qabiil ah oo u beegsado oo afduubto xalay ayaa u dambeysay ilaa iyo 30 qof ay afduubeen ka afduubeen tuulooyin ku yaallo gobolka Hiiraan cadowgan waxa loogu hortagi karaa si midnimo ah oo aanan loo fiirin hal deegaan kaliya sida aan la socono caasimadda naftigeeda ayaa waxa u baahan in laga bilaabo xoreyn waxaan talo ku soo jeedin lahaa dhammaan xildhibaanada golaha shacabka in aan bilaawno abaabul oo ah inaan ka bilaawno magaaladan Muqdisho in dadka degan ay si xor ah ay ugu noolaadaan inaan anagu aan ugu soo korno magaaladan geeski gees sidaan rabno aan ka degi karno xaafadii aan rabno inaan ka degi karno taasna waxay ku imaan kartaa marka baarlamaanka dhamaantiis iyo ummadda Soomaaliyeed iyo qaasatan dadka deegaankan magaalada Muqdisho caasimadda ay kacaan anigu waxaan qabaa in dadka caasimadda magaalada Muqdisho la abaabulo laguma jiri karo maalin walba in la dhaho qaraxa halkaas soo socdo laguma jiri karo in la dhaho wadada saaxiran iyo heeskoos iyo wadooyin xirxiran walaalayaal baarlamaankan ha ka bilaabato mar rabo inaan ku sii dheeraado laakiin waxaa muhiim ah in arrinkan aan abaabulkeeda aan bilaawno xitaa haddii aan ku bilaabi karno gudoomiyaasha degmooyinka sida gobolka Hiiraan sida ka dhacday inaan degmooyinka Muqdisho aan abaabulno mar labaad mar saddexaad waa u mahad celinayaa gudoonka iyo golaha shacabka waa mahadsantiin